Dhaqaalaha caalamka badanaa waxaa maamula Mareykanka. Sidee weli ma heshay tusaale? Daawo daqiiqado yar si aad xog badan iyo qosol u hesho. Muuqaalkan gal ganacsi waxaynu ku soo koobaynaa sheeko lagu tusaaleeyay isdaba wareegga lacagta iyo sida Mareykanka u maamulo dhaqaalaha caalamka. Sheer gareeya oo la wadaaga saaxiibadiina adigoo oo uga wici kara qaybta hoose si uu u daawado. Haddaynu gudagalno, tuulo yar way degan yihiin dad sabool ah oo dhammaantooda deen lagu leeyahay ayaa waxa ay ku tiirsan yihiin kaliya wax soo amaanshiyaha iyo soo deensi. Maalin ayaa waxaa tuulada yimid dalxiise taajir ah. Waxa uu galay hoteelkii tuulada, kadibna $100 ayuu u dhiibay ninkii joogay soo dhaweynta. Kadib dabaqa sare ayuu aaday si uu u soo fiirsado qolkii uu degi lahaa. Intii uu ku maqnaa soo eegista qolalka, kii joogay soo dhaweynta uu $100 ula cararay kawaanka hilibka si uu deynta isaga bixiyo. Kawaanlihii oo faraxsan ayaa $100 ula cararay suuqa xoolaha si uu isaga bixiyo deyntii uu ku lahaa ninkii xoolaha keena suuqa. Midka xoolaha gadayay ayaa isaguna $100 siiyay ninka gadaa calafka xoolaha oo deen ku lahaa. Kii gadayay cawska xoolaha ayaa isla markiiba $100 farta ka saaray ninkii gaariga cawska iyo balka uga keeni jiray baadiyaha oo deen ahaan ugu lahaa. Isla markiiba darawalkii ayaa $100 u geeyay ninkii joogay hoteelkii uu seexan jiray oo isaguna deen ku lahaa. Ninkii joogay hoteelka way u soo laabatay. $100 ayaa geliyay khasnadda iyadoo uusan weli soo degin dalxiisihii dabaqa kore ku maqnaa. Ninkii dalxiisaha ahaa ayaa soo degay, laakiin waxa uu sheegay inuusan ku qancin qolalka hoteelka. Kadibna waxa uu ceshaday $100. Waa sida uu Mareykanka u maamulo dhaqaalaha caalamka. Haddaba maxaa laga faa'iiday ayay kula tahay? Waxaa nagala socotaan gal ganacsi.